gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax iyo gudoomiyaha maxkamadda degmada Aqooyan Maxamed Axmed Olol ayaa maanta kulan balaaran qaatay dilaalinta seelada iibka xoolaha ee magaalada Ceergaabo waxaana kulankaas ahaa mid lagu meelmarinayay dhaqangalka qaraar ee hore maxkamadda degmada uga soo saartay seelada iibka xoolaha oo dadka reer miyiga xoolaha seeladaasi u iibkana ay hore cabasho uga muujiyeen ay waxa shirkaasi goobjoog ka ahaa xogayaha fulinta degmada xildhibaano ka san golaha deegaanka culmaadin ka tirsan gudida wanaag fariista waxaana qaraarka maxkamadda amarkaasi halkaasi ka akhriyay gudoomiyaha maxkamadda degmada Aqooyan Maxamed Axmed Olol maxkamadda degmada Ceergaabo maanta oo taariikhdu ay tahay 17kii bishii 3aad 2020 waxay maxkamaddu ay faafinaysaa fulin xoogan oo la xiriira xukunkii maxkamadda degmada Ceergaabo ay soo saartay 21kii bishii 11aad 2019 xukunkaas oo la xiriiray iibka xoolaha ee seelada degmada Ceergaabo qodobka koowaad waxa mas'uuliyad naga saaran tahay ilaalinta diinta islaamka iyo shuruucda ahkaameed ee ka farcama waxa mas'uuliyad naga saaran tahay kala ilaalinta xayndaabka sharci iyo xuquuq ee bulshada dhexdeeda yaala si dulmi iyo isku dulnoolaansho aanu uga dhexdhicin waxa mas'uuliyad naga saaran tahay kala dulmiyay waaya waxa mas'uuliyad naga saaran tahay miskiinka xoolihiisa gacan qof kale si xaq darro ah u jira waxa mas'uuliyad naga saaran tahay ilaalinta danta cadaaladeed ammaanka guud iyo fayadhowrka badbaadada bulshada iyo bahaayinka waxa xaqiiq ah intaasba in ilaahay annaga wax naga weydiinayo nagana xisaabtami doono maxkamadda degmada Ceergaabo waxay go'aan ka soo saartay iibka seelada xoolaha go'aankaas oo ku taariikhaysan 22kii bishii 11aad 2019 nooca iibkaas oo ah mid baalmarsan shariicada islaamka waxaanu ognahay qaar dilaalinta kamid ah dumarka xoolaha qala ee ka ganacsada iibka xoolaha oo iyaguna saas la mid ah aan dhaqan gelin xukunkii maxkamadda waxay amar ku qabaan dabagalka sida uu u dhacay cidda gashay iyo cidda laga galay iyo soo ururinta cadeymaha ku ogaataan cid kasta oo cadeymahaas lagu helo waa kuwa ku gafay qodobada 505 iyo 507 xeerka ciqaabta guud waa cid ku gaftay ahkaamtii shariicada islaamka waa cid tiri waxaan samaystay diin aan ahayn diintii ilaahay ummadda tan uu ku waajibiyay qodobadaas oo dhigaya amar ka soo baxay maamulka dawladda oo aad diiday inaad fuliso cid kasta oo dhaqan gelin weydana waa cid ku sifaysan inay iyagu sharciga ka weeyeen sidaas ay ciidanku amarka ku qabaan haween iyo dilaaliin iyo hodheelayaal sidaas aanu faafinta rasmiga ah aanu u marinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Sanaag iyadana wax lagu amrayaa inay cid geysato seelada xoolaha sababtoo ah adduunka maanta waynu ka warhaynaa cudurrada iyo caabuqa iyo xaaladda ka jirta neef kasta oo seelada soo gelaya fayaqabkiisa caafimaad waa inay wasaaraddu ay ka baadhaa bulshada waa in neefku inta uu seelada ku sugan yahay baadkii uu daaqi lahaa wasaaraddu waa inay mas'uuliyaddeeda iyo roolka kaga aadan weynay ka gudataa marka neefkaasi ay u qof mulkiyo oo ninkii reer miyiga laga iibsado mas'uuliyadda neefkaasi wuxuu u wareegayaa ciddii iibsatay inta ka horeysa ayaa wasaaradda xanaanada xooluhu
ay mas'uuliyadda saaran tahay. waxaana go'aanka maxkamadda ay hore u soo saartay dhinaciisa soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo dhinaciisa ballan qaaday inay dhaqan gelin doonaan xeerkaasi isla markaana cidii ka hortimaada tallaabo cad laga qaadi doono. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maxkamadda degmada Ceergaabo ee qaraarkan gaadhay sida uu inoo akhriyay minka xaakimkuna waa waqti hore ee maanta mid soo baxay maaha laakiin wuxuu isugu yeedhay dadka inuu dhaqan galo iminkana qaraarku wuxuu ku dhacay arrintaasi inay socoto oo cidda ay khusaysa ay socodsiiso annagu haddaanu nahay dowlad hoose waxaan ballan qaadaynaa inaanu guddoomiye socodsiino wixii annaga naga beegan ciddii socodsiin weydayna waxaa ka mas-uula ciidamada qalabka sida oo boliisku kow ka yahay wasaaradda xanaanada xooluhu qodobka koowaad uu khuseeyo wey inay ilaaliyaan in xoolaha la daryeelay oo biyo la siiyey oo geeda la siiyey neefkii xanuunsanaya oo buka inaan la qalin inay diidaan iyaga caqule ana go'aanka ay maxkamaddu hore u soo saartay maalinta bariye dhaqan gali doona ayaa waxa dhinacooda soo dhaweeyay qaar ka mid ah dilaalinta seeladaasi oo dhinacooda ballan qaaday go'aanka ka soo fulay maxkamadda degmada iyo dawladda hoose iyo gudoomiyaha hadii la ku yiraahdo golaha deegaanka iyo xildhibaanada iyo hadii la yiraahdo maxay ahayd toy wadaadada iyo culimada iyo waxa ka soo baxay waa kaanu sugaynay go'aankana waa waafaqsanahay waxaanuna ballan qaadaynaa dhamaantayo inaanu sida uu yahay ku socodsiino wixii naga qabtay go'aanka laga sheediyay xarunta dawladda hoose haddii aanu nahay ka dilaalinta aad iyo aad baan u taageersanahay waa kii aanu hare u weynay annaga wixii naga khuseeya waanu fulinaynaa sidii hore linayo ku soo talagelin sidaas waanu dhaqan gelinaynaa waana dhaqan galay go'aanka ka soo maxkamadda iyo maamulka heer degmo ama heer gobol dhammaan sidoo yahay baan u qaadanaa una taageersanahay waana arrin loo baahnaa oo u baahnay fulinteeda maanta soo baxday inay hore u soo baxday Ali Aadan Daahir telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.